kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga Hilaac qodobada aad daawan doontaan waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in ay sii xoojin doonaan qorshaha al-shabaab looga saarayo dalka wasiirka gaashaandhigga dalka iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Jaamac ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad lagu xusayo cunayarida dalka dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dib loo furi doono wadooyin ay go'doomiyeen al-shabaab xogayaha guud ee SJS Cabdalla Muumin ayaa xabsiga laga sii daayay dawladda Soomaaliya ayaa deeq raashin ah u qaybisay dad saameyn ay ku yeesheen qaraxyadii ka dhacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan wafdi uu hogaaminayay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Maxamed Xuseen Roble ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ee gobolka dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in taageerayso kacdoonka ka socda gobolada dalka guud ahaan warka TV-ga Hilaac waa naga intaa